saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan Salaam Academy ee barashada luqadda Carabiga. Iminka haatan waxaynu baranaynaa kelmadaha kala ah qara'a, kataba, iyo rafaca iyo ansala oo ka dhigan qara'a waa uu akhriyay, kataba waa uu qoray, rafaca kor buu qaaday, ansala waa uu dejiyey. Haddaynu higaadino kelmadda koowaad ee qara'a waa qaaf fadxa leh loo geeyey ra fadxa leh loo geeyey alif fadxa leh. Qara'a qara'a waa uu akhriyay, kaaf fadxa leh loo geeyey ta fadxa leh, kata loo geeyey ba fadxa leh. Kataba waa uu qoray, kataba waa uu qoray, ra fadxa leh loo geeyey fa fadxa leh loo geeyey cayn fadxa leh. Waa rafaca kor buu qaaday, rafaca rafaca. Ansala waa alif loo geeyey nuun sukuun leh ama signo lagu reebay, an loo geeyey za fadxa leh loo geeyey laam fadxa leh. waa anzala wuu dejiyey. Qara'a waa uu akhriyey, kataba waa uu qoray, rafaca kor buu qaaday, ansala waa dejiyey. Rafaca kor buu qaaday, qara'a waa uu akhriyey, kataba waa uu qoray, rafaca kor buu qaaday, ansala waa uu dejiyey. Haddaynu dedejinno waa qara'a waa uu akhriyey, kataba waa uu qoray, rafaca kor buu qaaday, ansala waa uu dejiyey. Xarafka deel iyo daal iyo ra iyo za iyo wow iyo alif gadaashooda xaraf dambe laguma xidhi karo, halka xuruufta kale oo dhan ay isgelgeli karto oo markaasi horeeto iyo dambeetaba la isku xidhi karo. Sidaa daraaddeed halkaasoo aynu ku barannay 4 kelmadood oo luqadda Carabida ah, waxaanay caddaynaysaa qara'a iyo kataba iyo rafaca iyo ansala afartii ay ka koobnayd. Lababa waxa ay samaynayaan macnayaal kala gedisan oo iska hor imanaya, sida qara'a wuu akhriyey ay uga hor imanayso kataba oo wuu qoray ah, halka rafaca oo noqonaysa kor buu u qaaday ay markaasi ka hor imanayso si dhaba ansala waa uu dejiyey. Waxaanay muujinayaan kelmadda qara'a ee wuu akhriyey iyo rafaca kor buu u qaaday iyo ansala waa uu dejiyey macno kale, halkaasoo qara'a wuu akhriyey ay markaasi leedahay ra iyo alif aan midna mid ku xidhnayn. Sidoo kale kelmadda rafaca oo kor buu u qaaday ah ay ku jirto kelmadda ra oo markaasi aan ku xidhnayn kelmadihii kale, sababta oo dhammaan xuruuftan aan soo sheegay ee ra leh ee alif leh ee za leh waxa ay ka mid yihiin xuruufta aan gadaal waxba laga raacin ama dhanka bidix, xuruuftaasoo noqonaysa deel, daal, ra, za iyo wow iyo alif. Haba ahaadaan xuruuf aan gadaal waxba laga raacin ama xaraf kale kala xidhiidhi karin ama dhanka bidix aanu kala xidhiidhi karin xaraf kale, balse intaa waxa u dheer alifka inaanu isagu aqbalin in dhinacba uu xaraf kala xidhiidho marka laga reebo laam oo marka uu xarafka u dambeeyo uu markaasi gadaal kala xidhiidhi karo. Marka xuruufta aan gadaal waxba lagala xidhiidhin waa deel, daal, ra, za iyo wow iyo alif. Inkastoo alifku ka duwan yahay oo isaga horaanta iyo gadaalba aanu xaraf kala xidhiidhi karin marka laga reebo markuu laamku u dambeeyo. Qara'a waa uu akhriyey, kataba waa uu qoray, rafaca waa uu qaaday, ansala waa uu dejiyey. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.